sixroolayaal inta badan ragga naftooda halliga oo ay soo diraanna waxa ay soo siiyaan waxyaabo sixir ah. waxa uu sidoo kale tasharaxayaa beer ku taalla Jubbooyinka oo ah beeraha dhanka khudaarta ah in ay mar walba halkaasi geeyaan ragga isqarxinaya ay leeyihiin beertan beer ka qurux badan iyadoo kala ah oo xural cayn ay ku diyaarsan tahay ayaa lagu geynayaa sidaas darteedna qofka ka bacdi ay siinayaan caano nin rag ah laga soo lisay. waxaad aragtay nala wadaag من يهودا ناسيس مدحيجي مدحها اللي كل يجي ناصله صح لليس هاي ها صح أني شهر وعديسان عنيه لقال سنين كشهر وعديسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال سودو هذا waxaan idin hayaa xog halis ah oo ay sameeyaan kooxaha argagixisada al-shabaab qatarna ku ah shacabka Soomaaliyeed aysan ogeyn oo ka dahsoon ayaan rabaa inaan halkaan kula wadaago. waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka noo share gareysaan sidoo kale tana page-ka isha aad follow gareysataan si mar walba aad ula socotaan xogihii ugu dambeeyay. mahadsanidin. aan ku bilaabay xogtani waa xog qatar ah oo ay mar walba sameeyaan kooxda argagixisada al-shabaab kana sameeyaan qaybo kamid ah gobolada Koonfureed gaar ahaan gobolada Jubbooyinka. halkaasna waxaa ku sugan rag sixroolayaal ah oo qatar ku ah shacabka Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliyeed waana dhibaatada ugu weyn ee kooxda argagixisada halkaasi ay ka soo sameyso. nin ka tirsan kooxdaasi argagixisada al-shabaab iskana soo dhiibay gobolada Jubbooyinka ayaa waxa uu ka sheekeynayaa qatartii ugu darneed oo uu arkay intii uu ka tirsanay kooxdani argagixisada al-shabaab. sidoo kale tan waxa uu sheegay in markii uu arkay oo ku naxay sidoo kale tan anfariir ay ku noqoto dhacdadani. waxa uu sidoo kale tasharaxayaa in uu ka maqli jiray shacab Soomaaliyeed kooxdani argagixisada mar walba waxa ay sameeyaan sixroolayaal inta badan ragga naftooda halliga oo ay soo diraanna waxa ay soo siiyaan waxyaabo sixir ah. waxa uu sidoo kale tasharaxayaa beer ku taalla Jubbooyinka oo ah beeraha dhanka khudaarta ah in ay mar walba halkaasi geeyaan ragga isqarxinaya ay leeyihiin beertan beer ka qurux badan iyadoo kala ah oo xural cayn ay ku diyaarsan tahay ayaa lagu geynayaa sidaas darteedna qofka ka bacdi ay siinayaan caano nin rag ah laga soo lisay kadibna shaah loogu darayo kadibna qofkaasi uu noqonayo qof isaga dhanba maskixiyan maqan. xogtani sidoo kale oo ka sheekeeyay ninkani ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab oo anfariir mudan ayaan rabaa inaan halkaan kula wadaago. waxaan ka codsanayaa inaad si degan muuqaalka u daawataan sidoo kale tana si share gareysaan sida bulshada Soomaaliyeed ay u arkaan dhibaatada iyo qatarta kooxdani argagixisada ah ay ku hayso. bal ila daawada sida uu uga sheekeynayo ninkan ka soo goostay kooxda argagixisada al-shabaab oo su'aalo badan la weydiiyay dhacdadii ugu xanuunka badneed oo ku dhex arkay kooxaha argagixisada ayuu la wadaagay ciidanka ammaanka dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ee gacanta ku dhigay ninkani isku soo dhiibay. sidoo kale tana uga soo cararay kooxda argagixisada al-shabaab sixirada joogtada ah ay u isticmaalaan dhalinta Soomaaliyeed ee mar walbaba isqarxinta ay u adeegsadaan. bal ila daawada. marka hore مدعي بورو عبد الرحمن عبدي بالله بورو عبد الرحمن عبدي قبيل كاغا صومالي قبيل كاغا تاي غير الله كتاي ديغان كاغا قنصح دير كسوان تاي مغالada Hoosingo waxaad ku jirtaa gacanta amniga ee degmada Hoosingo stationkii gaar ahaan dhex joogtaa. waxaan ka rabnaa wixii talagalkaaga ahaa halkan aad ku timid oo sax ah inaad noo sheegtid. guri waa qaadaa aad iyo aad waana laga soo noqdaa sax ana dadka ku jirka guri ba iigi waan gartaa guri ba ku geeyay guri ba iigi waan gartaa hadan ilaahay baa raadkiga ka soo qaaday waan ka soo baxay waan gartaa ilaahay baa iga soo bixiyay waan gartaa oo iga soo waday waan gartaa muddo 3 bilood lacag aan ku waayay صح
oo mishaar kuma siinin مشاري مسين imisa marka hore mishaar u qaadan jirtay $7 marka hore $7 qaadan jirtay sax waan gartay أنا ولو بلوغ أنجو بيشي 16 أي كبحل 15 أي دمنته waxan aan arkay waan gartay maxaad aragtay nala wadaag nin yahuud ah oo naasiis madaxeygii madaxaada la kala egyihiin naasale sax oo la lisaayo sax caanihiis shax lagu cadeysanayo caanihii laga lisa ninkaa shax lagu cadeysanayo haye aan arkay ishaan ku dhuftay sax markaan ku dhuftay داني قولي وتاو كمبوشة بان هاي أديان قولي ما نقول درت إن نديره هذا معي هذا معي صح ومن كسباني أنا نقول صح نبى يلي سعد ما قلت نيك يلي سعد بقول يعني خاص يعني عند ديجيس كان ديجي وملي حيز كروبا صح بدي كوري كبح صح لو ما الموت أكلن جوي ما قلت مرنيك صح لو ما الموت أكلن جوي ما نسدهاتي ورتانا بيك سعد وحنا قرين دوس نواك صح هاي ورتانا بيك سعد وان قرتي انت marka meeshaas urun gudan waan gartay marka ورتانا بيك سعد alaabtu isi hay waan gartay waan gartay kuma noqon mar walba dhalinta Soomaaliyeed ay u soo adeegsadaan inay naftooda haligaan ayay waxyaabahaasi argagax leh oo ay sameeyaan kooxaha argagixisada ay soo siiyaan waana qof miirkiisu uusan joogin dhalinta aad arkaysid oo naftooda haligaya oo ay soo dirayaan kooxaha argagixisada al-shabaab haddaba mar walba halkan waxaan kula wadaagi doonaa dhacdooyinka khatarta ah ee kooxaha argagixisada al-shabaab ay ku sameeyaan dhalinta ay qaldeen ee la jooga oo sidoo kale tana ay u soo diraan inay naftooda haligaan xogahaasi oo dhameystiran ayaan in la wadaagay waxaana mar walba idin soo gudbin doonaa dhacdooyinka anfariirka mudan ee kooxda argagixisada dhexdooda ka jira iyo sidoo kale khatarta ay ku yihiin shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed inta aan dib ugu kulmi doono daawadayaal muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo